weydo wax uun bixi ikhwaani sadaqada cajaa'ibteeda waxaa ka mid ah oo markaad maqashid aad naftaadu waxay damcaysaa wax kastoo hesho inaad bixiso xaqiiqatan wayna mudan tahay qofka wuxuu sadaqaysto wax ka badan baa ilaahay ugu bedelaa $1 haddaad bixiso $10 baa ilaahay kugu bedelaa xaqiiqo wey waxaa daliil u ah caaisha radiallahu canha gabadha muslimkaah bal dhegayso waa umulmu'miniin waa qofka aad rabto iyadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho maalmaha ka mid a iyadoo sooman oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khubus ah waa 2 xabo oo canjeela ama jabaati ama rooti oo taqaanaan ayaa miskiin baa guriga kusoo garaacay gabar khaadimadoo la joogtay bay tii albaabka uu fur waayo way furtay sayta waa miskiin sayta xabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin u soo garaacay sayta waayo sayta waa miskiin kale sayta xabadka kale si sayta yaa umulmu'miniin maalin walba waxaad haysato intaad bixiso يا هذا واحد وإذا واحد كو أفرط واحد كو أفرط سيتي أزوج كداية سي حبت كيف قاعدة ويسيس حوجها كذب أيها قف كلا الباك صاقر قراعي بالفيري مسكين كلا هذا مسكين كلا محارسين أو صدحات الله كتاجر جودي بقى الباب كفرطي وحتى من أضانا أو هو ذا طبق صحن وين والناف أري أو حاطول سعر الهلب كيسال الله شيء لي باربيكيو أنا ونقعنا سكنا الله صلي oo rooti dusha ka saaran yahay tira badan markaasuu wuxuu yiri ehelkayga reerkayga waxay ugu dhaheen ummul mu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadha ay soo qaaday Aisha intii qasashay waxay tiri un wa khubzun khayru min khubziki wa khubz ka khayr badan khubzkaaga iyo un ilaahay agtiisu keen ilaahay baa soo diray tabaaraka wa taala fadlka fiir bil ajiba wa Aisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti ay hilib loogu bedelay haddaad dhibaato ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaalaan ku haysato Aisha ku day wax haysatid bixi wax ka badan baa ilaahay ku siin waxyaabaha sadaqadu sameeysa waxa kamid ah waa mas'alo aan islaayahay wallahi maanta dad badan oo muslimiin ah u baahan daawu barqaakum bisadaqa qofka jirkan sadaqa ku daaweeya waliga xadiidka nabiga intaad maqashay sallallahu alayhi wasallam asoo qof ka jiran yahay ma u qasaday inaad ku daaweysid sadaqo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam وحاد على إمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم قصوين كان شيء أنت بدن قف كهربا وحكى آخر سنة كان كتاب له من عجائب الصدقة وعجيبة أو الصدقة شيء عجيب وغشة كيني عبد الله يعني إمام أبو عبد الله الحاكم أي جفري وجهه وحكى صباح بابا مركز بتاع اختار بوتلي وحكى سوسني ده هو اللواء ما المعلومة كاملة أسوي الدرس آخرين يوجه عامي والشيخ دبعته كهيسته ayaa waxa arkay wuxuu soo galay masaajid Abu Uthman as-Sabuni oo darsi ka akhrinay sheekha aqeedada caanka ku ahaa kutubka aqeedada iyo firaq bid'a in la dagaalamo markuu soo galay wuxuu yiri imaam Abu Uthman as-Sabuni baa wuxuu yiri u duceeya imaam Abu Abdullah al-Hakim in Ilaahay caafiyo dadka waxay in Ilaahay caafiyo asagoo subaxii dambe darsi xadiis sheekhi akhrinay ayaa waraaq ba hortiisa lagu soo tuuray waraaqdii uu furay waxa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxaan ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam riyan ku arkay ajiib markaasuu nabigu wuxuu igu yiri waxaad ku tiraahdaa Abu Abdullah al-Hakim waxaad ku dhahdaa yuwassi' al-maa'a lil-muslimiin muslimiinta biyaha sadaqaysto sheekh darsigii buu dhameeyay markuu dhameeyay ayuu kacay gurigiisa darbigiisa wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaal u yeelay biyaa lagu shubay درسكي بقى كعبي والله تدوبري كدب بوجيه وي دمادين وي بابين عجيب وي ما انت قفك مسلم وحا هيست كانسر وحا هيست حنون وحا هيست ديكر وحا كو هيا حنون كست دايبيتك السكر با كويسه حنون كستا كو هي حنون ما كو هيا حديث كان النبي انت امنت داو مرضاكم بصدقه بالفير صدقه بحصو بخي إلهي أصله الداوية بالأركض دونتا وين عادي مرة بدن وين عادي قصوين حديث أبعد دعيه وهذا وقت كان الجوجع وحنا عادي قصة عجيبة لو عنو يرير أول علىها عيارية أيام مت كم إذا إكتوا إيش وحاك جل قري وحبا كتشوا إيش وين عاميسا وحبا كجرة دخاتيرتي لوجي أو تنوي كبقين إيش ماش مذوي دختر كسو حلية أنا عجيب ما تهابن كرو وخطر إيشان هذا أنت عبط إيش هو بيله يا عنو
hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaha ka da'aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sala allahu alay wasalam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisa sadaqa weyn bay bixisa waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yidhi bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobaynaya inaan qabo markaasuu markuu weysitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadba furduq ka soo yidhi oo bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sal allah alay slam cajiib weeye ka faa'iidayso akhi jiraa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nebiguna baray sala allahu alay wasalam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadtaa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiib ah oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro degdega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mida moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimmadii hore oo muslimiinta caanka ayd ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akrinaya oo fadhiya ayaa waxaa u soo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayey beerta taayirada waaweyn oo loo ujido oo lagu falayo ayaa ku dul dhacay sheekhii wuu fikiray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ah kitaabka akrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilka darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddii la yidhi ilmahaagii baa balaayo ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso moxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu lbalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu yidhi waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahamsanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiir akhay haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale a idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimkaa inuu bal dareemo fadliga ay sadaqadu leedahoon daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray wuxuu yihi anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonah wuxuu ii sheegay buui anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiina markaasuu yaa cam adeero waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isii aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay iyo makhaayad buu galay wuxuu yihi anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi asla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxi laha baa i caayay nin adiga nin xun baa tahay adoo kale ma qaaday iga deg taxi nin aniga maxaad iga rabtaa oo nin khabiis baa tahay nin xun baa tahay waa isdagaalay waxaan irabi waayo lacagteeda ii celi waa kaa harayaa lacagtii wuu ii soo celiyey waan soo qaatay waa soo lugeeyey meeshaan taxiga ka soo raacnay baan nimid anagu wuxuu xanaaqsan oo isdejinayaan meeshii imid baabuur kale aan soo raacay wallaahi wuxuu yidhi markaan xoogaa kadib soconnay ayaa waxaan u nimid baabuurkii oo intuu gadoomay oo uu gubtay 4 nin iyo darawalkii 5 ku dhinteen waxaan fahmay buu yidhi sadaqadaydii baa iga soo saartay iga reebtay musiibadaas akhi waxaad xasuusataa maanta waxbaad sadaqaysanaysaa aduu ma ogid
waxaad dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadid musiibo carruurta inaad kaga badbaadid jirro xun inaad kaga badbaadid dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insuransiga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xifdiyey waxaan kusoo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilahi wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan waa habeenka la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha way oo faraxsan ayaa albaabka la miskiin kusoo gargaraacay gabadhii baa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waa ay suuye qof miskiin oo tuugsana way wax siiya markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suuye baxdhe cayri saacadaan oo kale yaa albaabada la isku soo garaaca marqaankiiba ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri aniga orod naga tag wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddo waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gargaraacneen barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadka naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo wixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay dheh nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeersaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo maa iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiiriye wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhacdo ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameen baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waan isfuray wuuna waashay miskiinkiina hameenka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyay isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameenkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiir kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakhaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegey mid kale oo sadaqaysta kii baa yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilaahay u guuriyey wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimkaa gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aad shaqaysatid oo aad wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiin waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin dadkii ehelka way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kastoo awoodi baxso insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadaan baxsanay inuu ilaahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilahay inuu nagaga faydo wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam